labada waddan waa muslim inkastoo ay kala yihiin shiico iyo sunni labada waddanba waxay soomaaliya la samaysteen xiriir diblomaasi ah markii ay sannadkii 2011 macluushu ka dilaacday soomaaliya waxay turkiga iyo iiraan safka hore kaga jireen waddamada islaamka ee u soo gurmanayay soomaaliya gaar ahaan turkiga oo dawlad iyo shacabba si weyn u gacan qabtay soomaaliya turkigu waxay soomaaliya siiyeen gargaar dhan in ka badan 350 milyan oo dollar halka ay weli waddanka ka wadaan barnaamijyo horumarineed waxay kaloo dalka ka qaadeen boqolaal arday ah si ay tacliin u helaan waxay sidoo kale soomaaliya la bilaabeen xiriir baayac mushtar ah gaar ahaan dhinaca duulimaadka iiraan lafteedu waxay deeq ballaaran siisay soomaaliya waxay lacag ka badan 30 milyan oo dollar ku gargaartay macluushii ka dhacday waddanka iiraan oo saaxiibo badan aan ku lahayn dunida waxay danaynaysaa xiriirkeeda geeska afrika gaar ahaan marinada badda haddaba doorka labada waddan ee soomaaliya ma lagu tilmaami karaa tartan ku salaysan istiraatiijiyada siyaasadeed ay labada waddan ka leeyihiin caalamka siiba geeska afrika ma laga yaabaa inaan labada waddan tartan toosa uusan ka dhaxaynin balse ay mandiqada geeska afrika ka xigsanayaan waddamo kale haba ugu horreeyaan shiinaha yurub iyo maraykanka aynu ku horrayno dalka turkiga cabdulaahi xuseen xasan waa cilmi baare ku sugan dalka qatar turkiga qolyihii calmaaniga loo yaqaanay ee ka talinaya muddo dheer marnaba iskumay dayi jirin wax la yidhaahdo tartan inay la galaan reer galbeedka oo mandiqada geeska afrika gaar ahaan soomaaliya oo kale in ay sooba hadal qaadaan way gloorgarayn jireen kuwii kooxihii calmaaniga ah saraakiisha u badnaa turkiga hase ahaatee kasoo bilow waktigii najmudiin arbakan oo xisbigii horumarinta iyo cadaaladda markiiuu awoodda qabtay tixgelintaas soomaaliya la tixgelinayo bilaabatay maxaa hadda keenay turkigu inay soo daneeyaan geeska afrika iyo soomaaliya waxaa hadda keenay taas reer galbeedka laftooda diray oo caddeeyey American Enterprise Institute oo ma garanaysaa la aasaasay 1943 si rasmi ah warbixin uu soo saaray wuxuu caddeeyey in markii la gaaro taariikhdan hadda aan joogno turkiga iyo iiraan ay ku tartami doonaan mantiqada geeska afrika oo istiraatiiji ah oo halkaa laga ilaaliyo in labada dal oo laba dal oo awood waaweyn leh oo muslim countries-ka kamid ah turkiga iyo iiraan in laga ilaaliyo marka runtii turkiga waxyaalahaas oo idil isaga oo eegaya yaa waxaa la oran karaa waaba la joogaa taariikhdii waa hore ay reer galbeedka oo dorasheen danaha turkigu qaabka uu doono ha ahaadee waxaa cad in dadka soomaalidu ay dhinacooda si weyn uga faa'iidaysteen sida uu mar kale sharaxayo cabdulaahi xuseen xasan waxyaalaha turkiga isbelinta weyn uu ku mudan yahay waxaa kamid ah xagga ciidan xataa hadday noqoto soomaaliya inuu usoo gurmado waxyaalaha ilaa haddaba laga faa'iiday oo cad waxaa kamid ah turkigu airboortkii muqdisho inuu hawl badan ka qabto hawl aad u fara badan sida oo kale soomaalida oo xagga gaadiidka ciriiri kaga jirtay inuu furay Turkey ama waxa la yiraahdo Turkish Airlines oo hadda ay si fiican u kala goosto waddankii meelo badanba soomaalida ay geyso waddankana ku soo celiso sidoo kale arday fara badan oo kumanaan ah oo turkigu wax soo baraa labada waddan waxay kaloo si weyn isugu hayaan xaaladda dalka Syria iyadoo turkigu uu taageerayo mucaaradka sunniyiinta halka Iiraan ay taageerayso xukuumadda ay hogaamiyaan shiicada calawiyiinta ee Bashar al-Assad laakiin Soomaaliya waxa muuqata inta la og yahay in labada dhinacba ay taageerayaan dawladda Soomaaliya oo ay danahooda ka dhex arkaan cumar cabdiraxmaan maxamed waa khabiir arrimaha dunida islaamka ka faallooda waxa uu sheegay in Iiraan iyo Soomaaliya xiriirkoodu uu goor hore soo bilowday waxa uu ka hadlayaa ujeedada Iiraan ee xilligan dowlad weyn oo istiraatiiji leh bartilmaameed fog leh oo rabta inay gaarto geeska afrika marka inay ku yeelato lug oo cilaaqo la yeelato oo barnaamijyadeeda siyaasadeeda kuwooda istiraatiijiga ay ka filaan mustaqbalka inay cilaaqo fiican la yeelato ayay rabtaa dowlad xirxiran ma aha waa dowlad rabta inay dowr ku yeelato ama saameyn ku yeelatay rabtaa waa istiraatiijiya siyaasadeed iyo dana siyaasadeed ay leedahay oo kuwo dhow iyo kuwo fog isugu jiro labada waddanba waa turkiga iyo iiraan waxay dhowaanahan si weyn u gargaareen dawladda iyo dadka Soomaaliya nuur aadan nuur waxa uu ahaa sargaal ka tirsanaa ciidamadii cirka ee Soomaaliya waxa uu sheegay in Iiraan ay xilli horena taageero u fidisay Soomaaliya Iiraan horta waxay Soomaaliya xiriirkooda hadda ma bilaaban Iiraan iyo Soomaaliya dawlado xiriir lahaa ayay ahaayeen gaar ahaan 77kii dagaalkii aan la galnay Ethiopia Iiraan oo boqorka jooga waxay dawladihii Soomaaliya aad iyo aad u garab istaagay dagaalkaas
iiraan hadda waxay soo laabatay mar labaad markuu joogay sheekh shariif mar ay guddoomiyihii hore baarlamaanka iyo baarlamaaniyiin ay casuuntay dad badan soomaaliya casuuntay oo xiriirka ay bilowday markaas inay soo ceshto berigaa hore ay soomaaliya caawisay xilligii shaah xukumayay maxay ku caawisay soomaaliya waxay ku caawisay waagaas waxay ahayd horta shaaha taageeradiis waxay ahayd taageero asigoo fulinaya siyaasadihii maraykanka uu ka lahaa soomaaliya oo ahayd in shaaha iyo sacuudiya iyo dowladihii kale inay rabeen midooda soviet in laga saaro soomaaliya marka bakistan iiraan sacuudiya waagaasi ciidamada soomaaliya way garab istaageen si taageero shidaal iyo dhaqaale amba qaabka qaar ka mida hubka lagula dagaalamo dabaabadaha ay siin jireen soomaaliya haddaba ma tahay in soomaalidu ay ka walaacdo xiriirka ay la leedahay labadan waddan ama midkood cumar cabdiraxmaan maxamed ayaan hordhigay su-aashaas iiraan waxaa aada loo sheegaa inay istaraatiijiya xoog badan leedahay oo wadamadaas carbeed wadamada dadka muslimiinta ku badan yihiin inay rabto inay lug xoogle ku yeelato mustaqbalka waxaa walaac keeni kara oo lasdhigi karaa waxa mudan in laisweydiiyo yani kala duwanaanta madhabka shiiciga iyo soomaali oo 100% sunniyiin ah laakiin haddii tahay arrin ku kooban arrin ideolojiya aan shaqo ku lahayn ku kooban siyaasad bas haddii tahay wax ma dhiftaan cabdulaahi xuseen xasan waxa uu sheegay in su'aalo layska weydiin karo joogitaanka militari ee iiraan ee xeebaha soomaaliya iyo kalluumaysiga sharci darrada ah hadda waxaa jooga laba cutub ama waxa la yidhaahdo wardoon laba cutub oo wardoonka iiraan ah oo laba markab oo waaweyn bay waxay ku dul joogaan xeebta boosaaso aan saa uga sii fogeyn wardoonka labada qaybood labada markab saaranna sablaan iyo khaarig baa la yidhahdaa waxay iyagu ku andacoonayaan waxaanu ilaalinaynaa burcadbadeedaan ka hortegaynaa hase ahaatee waxaa jirta qorshahooda iyo barnaamijkooda inuu noqday waayihii dambe oo idil xeebta puntland saaran in ay marar badan kalluumaysi sharci darra ah iyo faragelin ziyaada ah hadday noqoto dhan taariikheedna waxayba aaminsan yihiin bandar qaasim waa meeshii ay ma garanaysaa waa zaman ka talin jireen cabdulaahi xuseen xasan waxa uu sheegay in istaraatiijiyada siyaasadeed ee geeska afrika ay isbedeli karto haddii uu sii socdo tartanka waddamada shisheeye ee geeska afrika fadlan haddii aad ku cusub tahay janalkan ha iloobin inaad subscribe aad tiraahdo haddiise aad tahay macmiil soo noqday ha iloobin in aad gambaleelka aad furato si aad ula socoto waxyaabaha aanu soo gelinno janalkan haddii aad u aragto in muuqaalada noocani oo kale ah aad wax ka faa'iidayso leeg saar si aan u aragno cadadda tirada danaynaysa mahadsanid fadlan haddii aad ku cusub tahay janalkan ha iloobin inaad subscribe aad tiraahdo haddiise aad tahay macmiil soo noqday ha iloobin in aad gambaleelka aad furato si aad ula socoto waxyaabaha aanu soo gelinno janalkan haddii aad u aragto in muuqaalada noocani oo kale ah aad wax ka faa'iidayso leeg saar si aan u aragno cadadda tirada danaynaysa mahadsanid fadlan haddii aad ku cusub tahay janalkan ha iloobin inaad subscribe aad tiraahdo haddiise aad tahay macmiil soo noqday
ha iloobin in aad gambaleelka aad furato si aad ula socoto waxyaabaha aanu soo gelino janalkan. haddii aad u aragto in muuqaalada noocani oo kale ah aad wax ka faa'iidayso leeg saar si aan u aragno cadadda tirada danaynaysa mahadsanid.